هيا أصحابتي welcome back maanta waxaa ka hadlaynaa film aad u xiiso badan oo romansi ah balse marka hore muuqaalkan laga noo saaray sidoo kale subscribe noo saar hadana way subtay gabalkan furo shaqadeena maanta waxay ku saabsan tahay gabadhan la yiraahdo Hiin macalinka jimka ayay su'aal weydiinaysaa waxayna ku leedahay sababta ay wiilasha u dheeraan kubadda cagta halka gabdhaha ciyaar fudud ay u ciyaaraan taasoo wiilasha siinaysa garoon baaxad weyn halka gabdhaha garoon yar ay u ciyaarayaan laakiin macalinka ayaa ugu jawaabay su'aalaha ay weydiinaysa idada ismaal ay adab yeelo socod uu leeyahay Hiina waxay noo shahay hooyadeed inag oo aad u naxariis badan maxay hooyadeed waxay xanaanaysaa ilmaha agoomanka ah guriga ay ku xanaanaysaa jacayl xadaaf ayayna siisaa ilmahaas arintaas darteed ayaa gabadheeda Hiin waxay ka dhigtay inay ku fikirto hooyadeed jacaylkeeda inay la wadaagaan ilmo kale sida darteed in aad u naxariis badan tahay sanado badan ayaa ka soo wareegtay markaan Hiin way weynaatay waxayna ka soo qayb galaysaa aroos waxayna ku fikiraysaa lacagta iyo hadiyada u siiyaysa arooska markaas ay waxay la kulmaysaa naag ay saaxiib yihiin isla shaqo waxayna weydiinaysaa imis ay hadiyad ugu dhigaysaa arooska waxayna u sheegaysaa lacag aad u tiro badan mid ay ku fikiraysa ka badan ah maadaama aroosada ay ka soo jeedo family lacag leh maadaama gabadhan waxay ku qasbantaa markaan lacagtan inay iska bixiso si sharafteeda u ilaashato caqabada kale oo meesha taal ayaa waxay tahay ninka aroosayo ayaa ah ex-keeda Wujay kaas oo ay kala tageen kaliya 6 bilood ka hor Hiin ex-keeda hore Wujay way yar u xanaaqsan tahay sababo la xiriira waxay ku kala tageen waan iska fahmi kartaa dad xiriir hore ugu dhaxeeyay markay kulmaan dhanka kale waxa arkaynaa ninkan dhalinyarada ee la yiraahdo Jiyak kambaniga qalabka elektarooniga soo saara wareysi ka qaadayaan si uu shaqo u helo ninkan wuxuu muuqdaa su'aalaha si fudud inuu ugu jawaabayo dhammaan su'aalaha la weydiinay si fiican ayuu ugu jawaabayaa sidii la rabay ka wanaagsanba laakiin markay maamulka ay weydiiyaan inuu yahay in agoon iyo in kale uu ka gaabsanayo oo kama jawaabayo maadaama wax waalid ah uu ku soo qoran faylkiisa mana doonayo inuu ka hadlo sida ayuu wareysiga ugu dhamaanayaa dhanka kale xafladii arooska ayaa bilaabanaysa halka Hiin ay daawanayso gabadhan isla shaqeeyaan Ayrin iyo saaxiibkeeda hore isguursanayaan Hiina waxay jeclaan lahayd booska aroosada inay istaagsanaato waxayna ku fikiraysaa arooskeeda inuu ahaa lahaa hadii inay saaxiibkeed markii hore ay kala tagayeen ay kala tagi lahayd waxayna galaysaa xasuus oo ah sidii u kala tageen waxayna ku fikiraysaa ninkan hab dhaqankiisa xun inay u kala tagin laakiin ay u kala tageen iyada madax adeegeeda iyo hab dhaqankeeda laakiin markaan ay xaqiiqda ogaanaysaa maxaa yeelay ninkan iyo gabadhan hal sano ay xiriir lahaayeen maadaama ay 6 bil ka hor ay kala tageen halkan waxa ka cad inay labadooda isku waday oo iyada khayaayanay gabadhan guriga wuxuu soo bandhigay isla markii kala tageen maadaama Hiin arintan ay aragtay ay ogaatay ay ka xanaaqday waxayna go'aansatay markaan inay arooska qasto kadibna maradii cadeed ay miiska saarneed ay dafaysaa waxayna ka dhiganaysaa taajikii arooska iyo garabkiisa istaagaysaa waxayna sameynaysaa sawirka markii galay farta dhaxay iyo kor taagaysaa laakiin waxaan dhan wax dhacmaan ay wax niyada ay ku hayso waa inay sameyso Hiina markaan waxa la kulmaysaa saaxiibadeeda oo ah qorta maqaalo ka hadlaya 18ka Hiina asxaabteeda ay ugu sheekeynaysaa ayada iyo ex-keeda wixii dhaxmaray iyo sida u khiyaanay iyadoo stress hayo kadibna ayaga ay xasirsanayaan oo niyada ay dujinayaan habeenkaasna waxay la kulmaysaa Jiyak oo ka shaqeeya dukaan gurigeeda u dhow waxaan halkan ka ogaanaynaa inay kulankooda koowaad oo ahayn maadaama ay mar walba dukaankan ay ka adeegato Jiyakna kama helin Hiin hab dhaqankeeda iyo dabeecadeedaba waxayna agtiisa ka tahay qof dabeecad xun dhanka kale waxaan arkaynaa ninkan la yiraahdo Guhan oo ka dhashay familka kambaniga iska leh waxaana la kulmayaa caawiyihiisa Hajin Guhan aad ayuu xanaaqsan maadaama waalidkiisa ula soo dagaalay waxaan halkan ka ogaanaynaa waalidkiisa sanado badan inay ku haysteen inuu guursado si uu carruur u helo asigana ma doonayo inuu guursado maxaa yeelay ma aaminsana jacaylka wax la yiraahdo Hiina kambaniga ay ka shaqeysaa waxayna ogaanaysaa in tartan la qaban rabo oo lagu qofkii ku guuleysto abaalmarin lacag iyo waxyaabo badan la siin doono booskeedana uu diyaariyay tartankaas ayadana ay ka qayb gali karto fursad ay u haysato laakiin halka dhibaato jirto oo ka hor istaagayso inay ka qayb gasho waa inay guursadaan oo dadka guursada kaliya ay ka qayb gali karo Hiina arinta aad ay ugu xumaanaysaa kadibna waxay bilaabaysaa biyo kulaa in isku daldasho kadibna qorshe ayaa ku soo dhacay ninkan la yiraahdo Jiyak inay adeegsato kadibna way tagaysaa waxayna ku weydiinaysaa inay saaxiibkeed noqdo laakiin asiga wuxuu ku leeyahay iyada ay ala balantay oo waxay tahay adag guursanayso waa inay guursataa gabar naxariis badan marka qof iyada kala inuu guursan karin oo nooceeda ah maalinta xitaa waxay kulmaysaa maamuladeeda oo ah Ayrin sidoo kale meesha waxa imaanaya saaxiibkeeda hore Wujay kadibna waxay su'aalo ay ku weydiinaysaa laba project ay kala keensadeen oo labadooda isku mid ah waxba kala doonayn Hiina halkan waxay ka ogaanaysaa Wujay inuu barnaamijkeeda u koobiyay maadaama ay markay saaxiib ahayn ay ugu shakeysay Hiina oo wax aqoonsan ninkan ayaa tan ugu sii darsantay kadibna waxay leedahay way u batanaysaa waxay leedahay waa ka arsan doonaa waxa ay ugu sameysay oo waxna ku harmaayo nin wanaagsan oo guursanaya mar dhaweey ku leedahay handadaadii sida dhab u dhigto markaan waxay u soo laabatay dukaankii ay u soo laabatay kadibna Jiyak ay walaad ku leedahay mar labaad i guurso waxayna u ballan qaadaysaa duu guursado inay mushaarkeeda qayb kamid ay sii doonto Jiyak aad ay u yaabaya gabadhan maadaama ay waxyaabaha ku hadlayso ay wax macquul ahayn leeyihiin waxaana ku fikirayaa inay stress zaid ah hayo maadaama sigaar ay hore cabi jirtay baakad sigaar ayuu soo qabanayaa meesha ayuu soo saarayaa iga tahay inuu leeyahay wayna ka soo tagaysaa maadaama ay arintan ku soo guuldareysatay wali ma ka sabrayso arooska oo waxay sii fiirinaysaa qiimaha ku baxay arooska waxaan halkan ka ogaanaynaa gabadhan sababta ay u doonayso inuu aroosto kaliya inay ahayn barnaamijkaas inay ku guuleysato ee tahay hooyadeed oo aad u xanuunsan ayna doonayso intayna geeriyoon ka hor inay aragto gabadheeda guursanayso inuu farxiso
guursanayso kadibna nin xariif magaalo ah ayaa dukaanka soo galaya asigoo ka shaqeynayo arrimaha Hiin asigoo ka ogaaday website-ka gurdoonka wuxuuna leeyahay gabadhan quruxdeeda iyo lacagteeda inay isku helayaan doonaya taasoo jiya ka xanaajinayso si uu ninkaas qajaanka gabadha ugu baday teleefkiisa ayuu qabanaya kadib dhulka ku tuuray inuu ku istaagay kadibna fiiraya sanka loo gelinaya subaxdii Hiin wadada maraysa ayuu arkaya kadibna uu soo ordaya wuxuuna weydiinayaa inay hesho nin guursado ilaa hadda laakiin waxay ugu jawaabaysaa ilaa hadda inay helnin guursado wuxuuna ku leeyahay aniga ayaa diyaar u ah maadaama maskaxdii aan beddelay hadda diyaar ayaan ku inaan ku guursado maxaa yeelay jiyaag waa nin wanaagsan ma doonayo ninkan stupidka inay gacanta u gasho gabadhan xariif magaaliyaalkan ay ka qadeen gabadha agteeda wuxuuna u sheegay inuu diyaar u yahay inuu guursado laakiin hal shuruud inay ka soo baxdo ay tahay kulaashan inay qaado kadibna ay xanaanayso gurigeeda ku xanaanayso wayna ogolaanaysaa bisada inay xanaanayso kadibna isla markii waxay bilaabaysaa inay diyaariso ninkeeda mustaqbalka isla markaas waxay aadayaan dukaanka dharka arooska lagu gado waxayna isku tijaabinayaan dharka arooska Hiina ninkan waxay haystaan in aan soo jiidasho lahayn laakiin marka uu style iska soo bedelo dharka soo libisto yaabaysa afka ay gacan saaraysaa oo ku soo baxay waxay ka filanayeen meesha waxayna doonaysaa inay guursato nin aan wajigiisa sida loo xasuusanaynin isla markaas wajigii saaxiibtiisa oo dukaanka ka dukaamaysanaya ayaa isla markii arkayaan inay ku soo leexanayaan labadii gabdhood waxay aad ugu mashquulayaan ninkan soo jiidashadiisa iyo qaabkiisa style-ka taas oo wajigii ka meesarsiinaysa kana caraysiinayso halka ay markaan ila dhacday ninkeeda mustaqbalka kadibna labanaha israacayaan oo cafeteria ay tagayaan si ay u hadlaan xafladda arooskooda caadiyan dadkan dhaqankooda wuxuu ahaa inuu muddo wada socdaan kadibna ee arooska ay ka hadlaan muddo markay wada socdaan kadib laakiin ayaga sheekada waa ka bedelanta taas oo aroos ay hore ka galayaan Hiina waxay sameeyso ma garanaysa markaan laakiin jiyaag ayaa wuxuu ku dhahay labadeena arooska beenta inta ku wada jirno dhaxdiisa hadii qof kamid ah qof kale jeclaato maxaa dhacayo Hiina ayaa markaas ku dhahayso waxba ka baqin maxaa yeelay arooskan waxa u galay aniga inaan tartan ka qayb galo aan guuleysto waana isxakameynaya waxba ka cabsanay ku leedahay dhanka kale guuhan hooyadiis ayaa waxay akhrinaysaa maqaalkii 18 ka ah ee gabadha qoraysay waxayna aad u helay sheekada maqaalka halka wiilkeeda iyada ugu digi jirtay waxyaabo oo kale isla markaas wiilkeeda ayaa imaanaya waxayna ugu digaysaa inuu iska ilaaliyo naagaha maxaa yeelay inay doonayaan lacagtiisa darteed inay u guursadaan naagta oo la saaxiibanaya si gooniyo oo u fiirshay ilgooniyo oo u fiirshay ilaa uu ka hubiyo waxay tahana oo ku degdegin inuu guursado dhanka kale Hiina ayaa jiyaag weydiinayso inuu guur ka dalbado maxaa yeelay inay doonayso sawir inay ka qaadato si dadka u tusiso inay mar dhow guursan rabto ay dadkana ay ku qancaan sawirkaasi laakiin jiyaag gabadhan waxay ka hadlaysaa ma garanayo oo wiligiis xiriir ma ona yeelan si waxaan loo sameeyana ma garanayo wuuna ka soo horjeesanayaa fikirkeeda kadibna banaanka ayuu soo tuuraya jiyaagna waxba ka garamayo waxyaabaha lagu yiraahdo romantic iyo waxyaabaha sida darteed banaanka ayuu geenayaa si uu ugu dhadhacsiyo inay isku fiicnayn waxay kadib Hiina dukaanka ayay ku soo laabanaysaa kadibna waxay arkaysaa inuu surprise u diyaariyay wiilkii naalna meesha uu ku xardhay iyo falaaro uu tilmaamayo markay falaaraha raacdaan waxay arkaysaa jeletan oo isku saasaar uu diyaariyay kuna qoran aan ku guursado kadibna tarin yar iyo faraanti u soo saaray ay arkaysaa xageed u soo socdo way qaadanaysaa wayna gashanaysaa aad anay una farxaysaa arintan markaan waxa la gaaray waqtigii arooska Hiina waxay asuunta dhamaan ilmihii hooyadeed ay soo korisay agomanka ahaa si ay arooska ugu sharaxaan meeshan ay ka qaadato xasuus aad u wanaagsan kadibna gacmaha ay soo qabsanayaan dadka dhamaana way sacbinayaan ayagoo garanayn labadan inay arooskoodu yahay aroos iska hoosoosa meesha ayna tagayaan guurkii ayana halka ku dhacayo meesha kadibna waxay soo baxayaan waxay soo aadayaan hotelkooda ayagoo hotelka isaga naqis dhahay ayaa waxay arkayaan wujay iyo saaxiibtiisa oo ayana hotelkan yimideen waxa markaa waxay ku qasbanaanayaan hotelka caawada inay jiiftaan waxayna u jelayaan inay aad isku jecel yihiin dhanka kale Jane waxay la kulantay karaashkeeda iskuulka high schoolka markaana waxay aad ugu shaqaysanayaan waxyaabihii ay soo mareen noloshoodii Hajan ayaa isla markii bilaabay inuu ka wareysto qoraalkeeda iyo waxyaabaha ay qorto inay qoraal weyn noqotay in kale laakiin ayada arrinka way ka naxaysaa maadaama qoraalkeeda uu bedeshay 18 ka inay doonayeen ninkan inuu ogaado waxyaabahaas ee ka xishoonayso inay u sheegto isla markaas Hajan message ay soo dhacay booskiisa Gujian ay u soo dirayo wuxuuna akhrinayaa isla maqaalkii Jane ay qortay 18 ka ahaa guuhan aad ay u xanaaqsan maadaama uu arkay hooyadiisa oo akhrinayso waxaan isla markaasna waxay bilaabayaan inay comment aad u xun oo gabadha ay ku caynayaan ay ugu qoraan meesha ay u dhigaan qoraalkeeda hoostiisa subaxdii Hiina iyo jiyaag hotelka ay weli joogaan jiyaagna markaan gabadha ayaa wax yar soo jiidanaysa wuxuuna bilaabayaa inuu isku dayo inuu shumiyo laakiin markuu dib wuxuu soo xasuusanayaa inuu ku guuleysan doonin arrintan oo dib ayuu ugu dagayaa kadibna isla markaas waxay bilaabayaan inay xisaabiyaan lacagii hadiyada arooska lagu keenay iska saxay inuu ku leeyahay aniga ku xisaabaya lacagta iyadana waxay leedahay ku aaminay muxuu leeyahay hadii nafsadaada ay u aamintay maxaa lacag ay u aaminaynin kadibna doodadii ay sii dharaanayso oo muranka ay si badinayaan maalmo kadib waxaan arkaynaa Hiina oo markaan safar galayso waxayna arkaysaa bashqad oo saaxiibkeed ugu tagay meesha habeenkii arooskana uu qoray 3 bil ayaa ka soo wareegatay markaana waxa la qabanayaa xafladii guuleystaha tartamayaasha lagu sheegi lahaa markaana waxa guuleystay Hiin oo iyada ayaa lagu doonsiinayaa koobkii markaan xaflad casho ayaa Hiin asxaabteed u qabanayaan kadibna kaligeed ay imaanaysaa waxayna leedahay saaxiibkay wuxuu jiraa safar shaqo oo ma imaan karin xafladan gabadhan aad ay ugu walwalsan tahay ninkii maadaama xafladii arooskooda markay ka soo noqdeen kadib meel uu ka jaanay cirib dhigay weysay
dhanka kale Jane aad ay u faraxsan tahay oo sheekadeeda meel fiican ay maraysaa maadaama editor fiican ay heshay dacwada ayay doonaysaa inay ka furto qofka commentiga ka soo bixiyay qaldan isla markaasna guuhan hooyadiis ayaa ku dhagan maadaama ay ogaatay commentiga uu ka bixiyay maqaalka waxayna ku amraysaa inuu raaligelin ka soo bixiyo kadibna saldhigga booliska ayuu soo aadaya markuu imaadana wuxuu bilaabayaa inuu raaligelin ka bixiyo subaxaas Jane banaanka saldhigga booliska ay tagneed waxayna sugaysaa qofka commentiga ka soo bixiyay wajigiisa inay aragto isla markaa aragtana waxay go'aansanaysaa inay jiciso inay soo cararaysa xagiisa soo cararaysa laakiin nasiib xumo intayna u imaan way dhacaysaa wax yar kadib kuwan wuxuu ogaanayaa caawiyihiisa inuu gabadhan saaxiibo yihiin dhanka kale hiin aad ay u yaabaysaa markay aragto Jiyak oo soo laabtay istaalkiisana wax badan ka soo bedelay hiina qalbigeeda aad ay ugu farxaya aragtida wiilkan wuxuuna u sheegayaa inuu aad ugu xiisay oo uu ku qasbanay inuu dhunto waxay kale ogaanaysaa inuu shaqaale cusub yahay oo kambaniga ku soo biiray waxayna aad ugu dadaalayaan markaan inay kala fogaadaan si aan cidna u ogaan xiriirka ka dhaxeeya ayaga waxaan halkan ka ogaanaynaa sababta Jiyak kambanigan ugu shaqeynayo nin aan la garanayn ayaa u yimid kadibna wuxuu u sheegayaa familkiisa inay khatar gelinayaan haddii uu shaqo raadsanin sababta ninkaas waxa uu sameeyaa nama garanayo Jiyak yihiin markaa waxay ka tashanayaan qaabkii kambanigan iskula joogi lahayn maxaa yeelay gabadhan markaan xil sare ayay ka haysaa kambanigan xiriirkooda in la ogaadana ma doonayso hiina waxay kula talinaysaa inuu agteeda ka fogaado si uu fogaa karaba wuuna ku raacayaa kadibna waxay u dhiibaysaa shaqooyin aan fiicnayn si uu uga hortagto in shaqaale looga doorto kambaniga ninkan maadaama uu train weli ku jiro laakiin markuu madax bombele iska siibo haweenkii meesha jooga dhamaantood ayaa ka wada helayaan ninkan markaas kadib Jiyak wuxuu la kulmayaa ninkii u handadayay kadibna wuxuu baabuur ayuu ku qaadayaa wuxuuna u sheegayaa gaarigan inuu siinayo iyo apartment oo deganaado dhanka kale guuhan problem ayuu kula kulmayaa waalidkiisa maadaama isku raacsaneen inuu warqad saxiixo in kale warqadaas oo ah haddii uu dhibaato ka timaado commentiga uu ka bixiyay maqaalkii in xilka uu wareejinayo qof kale uu ku wareejinayo markaan guuhan wuxuu isku dayaa gabadhii maqaalka qortay inuu raali geliyo laakiin way ka diidaysaa oo ka soo horjeesanaysaa kadibna warqadihii uu maqaalka commentiga ka soo bixiyay ayay ku soo fardhinaysaa weligan kuma cafinaya ay leedahay haddaa isdilaysa xataa ku cafimaaya ay leedahay kadibna waxay arkaysaa taraak xagiis ku soo socdo dardar wayna suuxaysaa kan inta ka qaado guuhan marka uu kaga arko gabadhan suuxaysa isla markii isbitaalka u dhow ayuu qaadayaa si loo daaweeyo dhanka kale hiin iyo Jiyak guriga ay ku soo laabanayaan kadibna waxay arkayaan Wujay oo albaabka irdiisa fadhiyo oo cabsan Jiyakna wuxuu iska fahansan yahay sababta ay hiin u qaranayso arooska shaqada ugu qaranayso inay tahay inuu ka cabsanayso inuu Wujay aad ugu masayro kadibna hiin shaqaalaha mid kamid ayaa wuxuu ku dacweynayaa inay Jiyak u adeegsato awoodeeda kadibna iyadoo shaqada laga ciirar ayuu u imaanaya kadibna wuxuu leeyahay xaaskayga waaye si uu shaqadeeda u badbaadiyo tanina problem kale ay bilaabaysaa maadaama ay boorka u ogoleen inay laba qof oo isqabtay hal xafiis ka wada shaqeeyaan laakiin waxba kama dhihi karaan oo sharci ka hor istaagaya inay isla shaqeeyaan ma jiro oo kambaniga u yaalo dhanka kale Jiyak way soo naaxaysaa kadibna waxay arkaysaa kuwan oo goobta jiifo kadibna hadiyad ayuu siinayaa waxayna ugu mahadcelinaysaa maadaama uu badbaadiyay wayna ka ballan qaadaysaa inay dacwada kala laabanayso dhanka kale xafiiska kambaniga xantii Jiyak iyo hiin ayaa aad u faafayso waxayna dadka qaar ku talinayaan inay ku habooneen inay isla shaqeeyaan hal xafiis kala shaqeeyaan laakiin si fudud ayaa arrinta u xalinayaan isla markaas ninkii hiin dacwiyay shaqada ayuu iska casilayaa hiinna waxay go'aansanaysaa inay shaqada ku soo celiso marka ninkii ayaa Jiyak u soo laabanaya kadibna wuxuu weydiinayaa sababta uu qariyay gurkiisa wuxuuna ku leeyahay Jiyak xabba kama gelin oo noloshiisa ka dhaxbax kadibna saacad ayuu meesha u dhigayaa si uu dhageysto ninkan wuxuu ku dhahayo qofka wacay iyo waxay ka wada hadlayaan subaxdii xigta labadii lamaan waxay aadayaan xarunta agoonta si ay shaqo ugu soo qabtaan tabarucaada kadibna waxay ku arkayaan Gujin halka ayayna kula yaabayaan waxaan halkan ka ogaanaynaa Jane inay Gujin ka codsatay inuu meesha tago shaqo tabarucaada ka soo qabto kadibna sawir ayuu soo diraya oo cadeynaya inuu meesha tagay wuxuuna leeyahay marka dacwada kala noqo markaan Jiyak iyo hiin way isku soo dhawaanayaan hiinna aad ay ugu walaacsan tahay Jiyak wuxuu ku sameynayo laakiin waxay aad ugu faraxsan tahay inuu weli xiran yahay farantigii isku gursadeen waayar kadib ninkii Jiyak u handada ayaa imaanaya waxaana halkan ka ogaanaynaa inuu yahay kambaniga ninka iska leh Jiyak iyo Gujin wiilashiis ay yihiin habeenkaasna way isla wada cashaynayaan lamaanihii subaxdii Wujay oo sarirtooda jiif ay arkayaan mana garayaan sida waxa u dhacay sidoo ninka meesha u yimid waxaana meesha ka cad inuu ninka khamri isku soo dadalay kadibna habeenkii uu meesha soo jiiftay Irina markaan waxay imaanaysaa iyadoo saaxiibkeed raadinayso kadibna markay ogaateen inuu meeshan jiiftay aad ay ugu maseeraysaa laakiin hiin iyo Jiyak ay niyad u dejinayo oo dhahayo meeshan ayuu khamri ku cabay oo ku dhacay markaan hiin iyo Jiyak waxay ka wada hadlayaan guurka beenta ay wada galeen iyo dhibaatooyinka ka imaan karo waxayna leedahay sidaan maahan sidaan doonaynay marka waa inaan xalkeena oo inaan kala tagnaa ay ku leedahay hiin si uu qof walba noloshiisa halka ugu sii wato markaan hiin isku socota ayaa waxay arkaysaa saaxiibkeed oo naakal xiriir la sameynayo kadibna way ku xanaaqaysaa laakiin isla markii saaxiibteed ayaa meesha ka soo gaarayso waxayna halkan ka cadeynaysaa inay hore ugu geed hiin markii arrinta saaxiibteed ka maqasho aad ay ula yaabaysaa dhanka kale ninkii Jiyak ayuu u sheegayaa inuu aabihiis yahay dhabta ah kadibna wuxuu u sheegayaa inuu ka tagay markii uu yaraa halka Jiyak uu ku dhahayo maadaama anigoo yar iga tagtay ina dayacday lagama yaabo wiil iyo aabihiis inaan isku naqano xiriirkana xiriir hore u jiray maahan mana sii socon kariyo hadda lamaanihiin iyo Jiyak waxay ku soo laabanayaan markaan
shaqadii laakiin dhibaato cusub ayaa u taala maadaama Guujay uu maqlay ayagoo ka hadlaya arrimahooda wuxuuna u booteenaya inuu qof walba u sheegayo Hin iyo Jiyaag markaan waxay ku qasban yihiin jacaylkooda inay muujiyaan dadkana istusaan inay aad isku jecel yihiin xiriirkeeduna uu adag yahay si ay u wartagaan ninkan hadalkiisa waxayna markaan go'aansadeen inay isku imaadaan hal guri wada degaan si uu jacaylkooda inuu run yahay gurikooduna uu run yahay oo cadayaan gurikooduna uu fake ahayn markaan waxay imaanayaan guri ay yaraantooda labadooda isoo wada mareen waxaan halkan ka ogaanaynaa Hin hooyadeed inay asigana soo korisay ilaa yaraantoodana ay siqeyneen sidoo kale gurigu wuxuu ka helayaa box oo meesha dhigtay oo alaabihiis u gashay jiray wuxuuna ku arkayaa alaab uuna asiga lahayn Hin iyo asxaabteedana markaan waxay bilaabayaan guriga inay toosiyaan ay hagaajiyaan si ay guriga u soo degaan markaan si ay u cadayaan lamaana sax inay yihiin dhammaan asxaabtooda ay waxay ku casuumayaan guriga cusub ay degeen casha ayayna ku casuumayaan martid markay kala tagaan ayna u baahnay markaa inay jiraan Hin ayaa inta soo cararto ay shumanaysaa Jiagna lama filan ay ku noqonaysaa taa isla markaasna waxay u sheegaysaa waxa inuu ka walwalin maxaa yeelay inay shumiskan u ahay saaxiibkeed hore inuu meesha tagnaa uu fiirinaay inuu tusinaysay inay xiriirkooda sax yahay ayna uu talaga gashay saaxiibkeed hore inay ugu masiirsiiso shumiskan laakiin Jiyaag waa shumiskan mid ku sugay asigana uu ku soo boodaya sida uu shuminaya maxaa yeelay gabadhan aad ayuu uga helay naftiisa subaxdii xigta Jane waxay la kulmaysaa Guujin kadibna waxay u sheegaysaa inuu kala laabato dacwadii saacadan laga bilaabana uu u baahneen inuu aado xarunta agoonta waxba ka soo qabto isla markaas ay wax arkaysaa aabaheed cabtooga ahaa oo soo socdo kadibna way ka cararaysaa goobta isla markaasna Guujin ayaa gacanta ka qabsanaya oo la cararayo kadibna waxay tagayaan meel gooni ah oo luuq ah oo inay isla faniisanayaan mana weydiinaya sababta uu soo carartay isla markaasna wuxuu bilaabayaa heesta uu jecel yahay inuu u qaado si uu u dajiyo qalbigeeda labadan si ay wanaagsaneen ay isku barteen laakiin hadda waxa u malaysaa inay saaxiibeen laga yaabay inay is jecel yihiinba dhanka kale ayna waxay bilaabaysaa inay ka shakiso ninkeeda inay ka misaarto maxaa yeelay waxay u malaysaa inuu jecel yahay saaxiibtiis hore wayna iska cadda taas inuu jecel yahay gabadhan lacag darteed uu isaga guursaday waa isaga jeedaa laakiin wuxuu u sheegayaa inuu dadka kala qiyaani karo laakiin saaxiibtiis uu qiyaani karin isla maalintaas Hin iyo Guujin ayaa waxay qaadayaan project ay diyaariyeen waxayna geynayaan xarunta agoonta si ay ilmaha loogu caawiyo isla markaasna Guujin wuxuu ka codsanayaa Hin inay ku soo laabato maxaa yeelay inuu jacaylkiisa iyada kaliya ay tahay tan uu la jecelayn oo la joogo guurkan uu ku faraxsanayn gurigii fake inuu iska og yahay kadibna waxay bilaabaysaa inay raacdaysato dhanka kale Jiyaag abiis ayuu la kulmayaa abiis ayaan u sheegayo Guujin hooyadiis inay og tahay inuu wiilkiisa yahay waxaan halkan ka fahmaynaa ninkan familkiisa dhab inay famil qariban yihiin waxaan u sheegayaa inuu taxadiro wuxuuna kale u ballan qaadayaa inuu warbixin fiican u keeni doono mar dhow Jiyaag markaan guriga ayuu ku soo laabanayaa markaan waxa u malaysaa labadan jacaylka beenta isku qabay inay jacaylkooda run isku bedelayo oo shumeenayaan isla markaas Guujin ayaa ka qasayo oo meesha imaanayo wuxuuna u og yahay inuu ninkan walaalkiis yahay laakiin wuxuu ka walwalsan yahay maadaama ay hooyadiis ogaatay arrintan waxay sameyn doonto isla markaasna wuu soo cararayaa kadibna Jiyaag ayuu kulatiga ugu dhagayaa Hinna way soo cararaysaa kadibna way dhaxgalaysaa si uu u badbaadiso ninkeeda Jane booqood markii maqashay ay meesha soo galaysaa markii aragtay Guujin meesha ay ka cararaysaa waxayna ka naxaysaa Jiyaag sidoo uu xanaaqayo maadaama baqalkeeda uu ku qornay nin dabeecadan camal leh laakiin Hin ayaa isdahaysa daji oo waxay leedahay diyaar ayaan dagaal u nahnay waxayna ku leedahay anigu joogo cid wax ku yeelan karto ma jirto isla markaasna habeenkii waxay ka sheekaysanayaan yaraantiisa dhibaatooyinka uu la kulmay wuxuuna u sheegayaa dadkii dhibaateeyay inay hadda doonayaan inay dhibaateeyaan mar labaad subaxdii xigtay gabadhiga markay tagaan ayay waxay ogaanayaan inuu Guujin shaqada ka cayriyay labadoodaba markaan Jiyaag uma dul qaadan karo waxa walaalkiis uu sameeyo wuxuuna go'aansanayaa go'aanka barnaamijka inuu bedelo wuxuuna ku leeyahay gabadhan inay kala tagayaan kadibna asiga uu iska baxayo laakiin shuruudda ay tahay in gabadhan shaqadeeda la waxyeelayn oo loo dhaafo shaqadeeda Jiyaagna markaan wuxuu gartay inuu muhiimadda siiyo Hin laba maalin kadib lamaanihi way baxayaan dalxiis ayayna aadayaan waxayna tagayaan meel ay weligood jeclaayeen inay tagaan ay ku soo dalxiisaan kadib markay soo qaataan waqtigood aad u macaa ay isla qaateen ayay waxay u soo laabanayaan markaan gurigoodii markaas ay wacdadu waxay ku arkayaan Jane oo nin ku dhagayo in la garanayn isla markiina ay soo ordaan ay kala tuuraan wuxuu ku noqonayaa ninkii Guujin ahaa maxaa yeelay ninkan gabadhan ayuu aad ugu helay laakiin problemkii hore u jiray mid ka weyn ayaa meeshan ka soo socdo isla markaasna Jane ayaa u sheegaysa ninkan inuu khamri cabayay kadibna markuu iska badiyay oo go'aansaday inuu hab iska siiyo sida ay arrinta u dhacday isla markaasna sheekadooda ayaa Hin waxay ka ogaanaysaa inuu yahay ninkii commentiga ka dhiibtay gabadha maqaalkeeda oo aad u dhibaateeyay Hinna markaan waxay rabtaa inay ninkan madax u geliso dalada laakiin waxay go'aansanaysaa saaxiibteed in raacdayso guriga ayayna ku raacdaysanaysaa qolka ay la galayaan sababta arrinta ugu qaraysa ayayna ugu xanaaqsan tahay subaxdii xigtay Jiyaag abiis ayuu wuxuu kula kulmayaa xirada fardaha abiis oo yarantiis ka cararay oo markuu weynaado aab u soo noqday markaan wuxuu doonayaa inuu aabba noqdo lacagna u siiyo ninkan uu ku sabsabo wuxuuna bilaabayaa inuu talooyin nolosha ku saabsan u siiyo wuxuuna leeyahay noloshaada waa inaad xor ahaataa Jiyaagna abiis hadaladiisa ayuu wax ka qaadanayaa wuxuuna is leeyahay sababta u tagaysa maxay tahay maadaama qof aad jeceshahay ay halkaan joogto in tahay in la noolaato isla markaasna gurigiisa ayuu soo laabanaya ayuu soo fiiro u wada gabadhiina fiiro iyo Sonia isla markaasna wuu shuminayaa ayagoo la socon problem inuu halkaan u bilaaban doono maalintii xigtay Hin waxay arkaysaa sawirka hooyadeed iyo Jiyaag oo isla sawiran
waxayna halkan ka xaqiiqsanaysaa inuu qarinayay inuu garanayay ilaa yaraanteeda. Hiin isla markii waxay bilaabaysaa inay su'aalo ka weydiiso arrintan kadibna Jiyaag uu sheegayaa wuxuu leeyahay hooyada waxay u codsatay in aan u sheegin inay ilmaha ay soo koriso aan ka mid ahay. taasoo Hiin ka sii caraynayso waxayna ku cararaysaa hooyadeed iyo Jiyaag labadoodaba. waxayna ku leedahay idinka waxa u maleysay mar walba dhibaatada kaligiin inaad soo marteen aan lafteeda dhibaatada soo maray ay ku leedahay oo aabahay ayaan ku waayay. sidoo kale arrin kale oo sir ayaa meesha ka cadaanayso waxaana halkan ka ogaanaynaa Hiin lafteeda in ay tahay ilmaha la soo koriyay hooyadeedna ay ahayn hooyadeed dhabta ah. Jiyaagna markaan wuxuu bilaabayaa inuu xog ka ogaaday saaxiibtiisa aabaheed. markaan Jiyaag waa ka go'an tahay inuu gabadhan ku guuleysto qalbigeeda asxaabtiisa inuu rasanaya caawin iyo walaalkiisa guuheena oo ka ogolaanaya arrinta inuu ku caawiyo. markaas ayayna bilaabanaya inay baaraan arrinta kadibna Jiyaag wuxuu imaanayaa gurigii ayuu imaanayaa wuxuuna Hiin ayuu ugu sheekaynayaa hooyadiisa dhibaatada iyo la soo martay iyo afaaraheeda. wuxuu kale ugu sheekaynayaa dhammaan ardayda ee hooyadeed soo korisay iyo waxyaabaha uu ka ogyahay arrimahaas. sheekadan ay isku fahmayaan kadibna muranka ka dhaxeeyay halka ay ku soo gabagabeynayaan. isla markaas Jane aabaheed ayaa guriga imaanayo waxaan halkan ka ogaanaynaa in uu yahay mid ka takhalusay Hiin aabaheed kadib markuu ogaaday in gurigiisa ilmo lagu xanaanayo. isla markaas Jane ayuu wararayaa kadibna wuxuu bilaabayaa inuu qaraaco. isla markaasna Hiin ayaa soo wacaysa taleefankeeda wayna la yaabaysaa sababtay u qabaladahay. kadibna Guujin ayay wacaysaa waxayna leedahay balsoo eeg wax ka qaldan gurigeeda. isla markaasna uu soo cararaya markuu imaado wuxuu arkay gabadhii xiiji lagu hayo. isla markaasna uu soo cararaya kadibna haraanti ayuu fujinayaa gabadhii ayuuna sidaa ku badbaadinayaa. kadibna labadooda ayaa dagaal ka dhex bilaabanaya gabadha aabaheed ayaana haraanti ku dhufanayo meesha ayuu ka tuuraya kadibna midi ayuu la soo baxayaa. Guujinna markaan iska difaacayaa si walba noqotaba uuna ka raaynayaa odaygii. gabadhiina markay aragtay markaan Guujin inuu badbaadiyay way ku soo ordaysaa hab ayayna siinaysaa wayna mahad celinaysaa inuu badbaadiyay. isla markaasna booliis ayaa goobta soo gaaray dhaqaatiir isla markaasna Hiin way imaanaysaa iyadana. Hiin way arkaysaa ninkan oo la xiraayo horeyna ay u taqiinay ninkan inuu yahay ninkii aabaheed sidaan u galay oo ka takhalusay. wayna ku faraxsan tahay markaan in la xiraayo oo xabsiga loo taxaabay ninkan. Hiin iyo Jane noloshooda nolol adag ay soo mareen laakiin si walba ay ahaato saaxiibo dhab ah way labadooda. waalidkood way dhex mareen arrintaas waxba ka bedelayso. Guujinna maadaama uu dhaawacmay isbitaalka ayaa loo qaadayaa isla markaasna Jane isbitaalka igu tagaysaa wayna soo booqanaysaa. labaanahan halkan ay ka xaqiiqsanayaan inay jecel dhexmaray oo jecel yihiin waxayna ka fikirayaan mustaqbalkooda si uu wadaagi lahayn waqtigan laga bilaabo. waxayna doonayaan markaa muranada iyo dhibaatooyinka ay soo dhamareen inay gadaal isaga tuuraan ay jecelkooda hor u wataan wax walba inay u hagaajinayaan u egtahay kuwaana jecelkooda inay halkan ka sii wadanayaan. laakiin dhibaato kale ayaa imaanayso markii Hiin la soo waco kadibna loo sheego hooyadeed oo isbitaalka muddo tiilay inay dhimatay. markaan Hiin hooyadeed kaliya kama dhiman ee dhammaan carruurtan iyada soo korisa badankood murugta ayaan la qaybsanayaan dhammaan. Hiinna labadii saaxiib ayaa u imaanayaan isbitaalka ay u imaanayaan meesha ayna ku saxiixayaan hooyadood in la duugo. 2 maalin kadibna duugtii hooyadeed ayaa la qabanayaa waxaana ka soo qayb galayo dhammaan carruurta ay soo korisay iyo carruurta ay soo xanaanaysa dhammaantood. markaana Hiin Jiyaag waxay u soo jeedinaysaa inuu wadadiisa qaado ay kala leexdaan maadaama ay doonayaan inay iyaga dhibaato ku noqoto noloshiisa iyo farxadiisaba waxay sameynaysaa wax wanaagsan ay tahay. dhowr bil ayaa ka soo wareegatay waxaan arkaynaa gabdhihii oo xaflad dhiganayo mid kamid ayaa uur qaaday wayna u hambalyeynayaan cunuga u imaan dhal ramar dhow. 2 maalin kadib Hiin waxay arkaysaa Jiyaag mana aamini karto inay aragtay maadaama ay maqashay markay isfuraan kadib inuu wadanka ka tagay oo isaga tagay. kadibna albaabka ayay xiraysaa kadibna way daba kacaysaa si uu hubiso inuu asaga yahay in kale ilaa hata ma aaminsano. habeenkii ayay dukaanka hortiisa ku kulmayaan meesha shakadooda ay ka bilaabatay. Jiyaag wuxuu sheegayaa inuu guriga u soo laabtay si uu guriga u ijaaro oona u soo laabtay saaxiibtiisa wax kaloo sidaan ayna jirin. markaas ayuu Hiin asigoo macsalaameynaya ayuu wuxuu siinayaa snowball oo ka soo gaday Canada. waxaan u sheegayaa gabadha loo sheegay asigoo la socotay in lagu sawirin loona tusay inay ahayd gabar hooyadiisa u shaqayso maadaama uu hooyadiis dib ula midoobo lana noolay intuu maqnaa. wuxuuna u raacinayaa gabadha kaliya oo jeclaaday oo rabo inuu la joogo inay iyada kaliya tahay ay Hiin tahay. wuxuuna soo xasuusinayaa faraantiyada ay wada xirteen markay isguursanayeen. Hiinna weli Jiyaag way jeceshahay welina faraantiga way xirantahay oo iskama siibin maadaama caqabadihii hor yiilay ay iska wareejiyeen markaa waxay go'aansadeen inay xiriirkooda dib ugu noqdaan. fadlan halka hadana la soo gaartay haddaan ugu cusubtahay subscribe noo saar haddaan run ula joogtaan like share comment-iga hanaga hilmaamin gamareelkan horfurta saaxiibta asxaabta